maamulka degmada Docol iyo bulshada qaybada kala duwan salaadiinta odayaasha dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadan qaaliga ah waxaan leeyahay waa salaamantihiin dhammaantiin waxaan rabaa halkaan inaan marka hore ka bogaadiyo uga mahad celiyo macallimiintii tababarayaashii saraakiishii ciidamadii ugu horreeyey ama qaybtii ugu horreysay ka mid ah ee daraawiishta galmudug ee halkaan ku soo bandhigay tababarka ay qaateen oo aadka u sarreeyey inaan idhaahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin maanta waxay noo tahay runtii maalin taariikhda galmudug uga qoran baal dahaba inaan aragnay ciidamo 4 bilood iyo dheeraad halkan xeradan degmada Docol gaar ahaan xerada Indaqaris ku soo qaatay tababar si buuxda oo dhammaystiran ay u qaateen aan arkaynay sida u qaateen tababarka inay soo bandhigeen goobtan ka muuqatay waxay noo tahay runtii inaan ciidan dishibliin leh tababaran gudan kara waajibaadkooda ay noo soo baxeen qaybtii ugu horreysay galmudug maanta u soo baxday waxay noo tahay maalintaas noogu qoran baal dahaba sida horeba loo xusay ciidamadan sharafta badan waajibaadkoodii qaybtii ugu horreysay soo qaatay intii ay u idmanaayeenna u dhaartay waxaan ka rabnaa ujeeddada maanta halkaan ciidankan uga soo saarnay tababarka kuwa kalena ay uga soo baxi doonaan waxay tahay inay ka xoreeyaan ka difaacaan ka hortagaan argagixisada joogta ama ku sugan deegaamo ka mida galmudug ciidamada halkan tababarka ku dhammaystay waa ciidan dowladeed waa ciidankii dowladda galmudug waa ciidankii amniga waa ciidankii sharafta galmudug iyo soomaaliba difaaci lahaa una idman una dhaartay laga bilaabo halkan oo galabtay ay ka dhacday dhaartii iyo waajibaadkii saarnaa loo dhaartay saacaddaas laga bilaabo waxaad tihiin ciidamo dowladda galmudug gudanaya waajibaadkooda aan meel kale ka tirsanayn aan cid kale ka tirsanayn aan wax kale ka shaqayn la dagaalama cadowga argagixisada ah suga amniga galmudug ka hortaga wax kasta oo xumaan ah caqabad ah dhibaato ah ka shaqeeya galmudug xasiloon barwaaqo ah nabad ah taasay tahay waajibkiinu kalsoonina waa ku qabnaa sida la sheegay saacaddaa laga bilaabo ciidamadu waxay leeyihiin xaquuqdoodii iyo waajibaadkoodii ay ku leeyihiin dowladda galmudug tababarka dugsiga Indaqaris qaybtiisii koowaad waa noo soo xirantay ciidamadanna waxay u dhaqaaqayaan inay gutaan waajibaadkoodii ka gutaan qaybaha kala duwan ama meelaha loogu talagalay ciidanka daraawiishtu ay ka qayb galaan amniga sugidiisa iyo xoreynta dalka ciidanka mariiniska cutubkii ugu horreeyey ee halkaan ka soo baxay u jihaystaan ka difaacidda biyaha galmudug iyo guud ahaanba soomaaliya sharci darro iyo ku xadgudub inay ka difaacaan tababarku waa noo xiran yahay waajibaadkuna waa sababkaan qaadanay saraakiishii iyo dhammaan howlwadeenadii hawshaas soo gutana si aad iyo aad u qiimo badan baan ugu mahad celinaynaa waana amaal marinaynaa dalcaadahoodii iyo darajadoodiina waa helayaan xaqudooda dhammaystirana waa helayaan ninba meeshii waajibkiisa waa ku gudanayaa dugsigu waa noo xiran yahay hawshu shaqaduna waa noo furan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu